warday dadkii inay ku arkaan dee haddaa u baahan tahay dee fiidiyoyaaka ee daawadaan wax waliba waxaa loo baahan yahay marka hore haye subscribe baa dhicisa waxaan sameynaa kadib share baa dhicisa walaa gareynaysa saaxiibkaaga baa ku arkay waa sii wadaysaa dee war isku soo dhakaarma isku soo fatarma jigsamiyaa waad ku mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal idil ahaantiina meel kastoo aad joogtaan waxaa idin leenahay kusoo dhawaada barnaamij gaara ugu talagalnay taariikhda dalka Soomaaliya taariikhda waxaa si toos ah halkan idinla socodsiin doona anigoo ah Xuseen Maxamuud Xuseen Yare hadaba waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka khaaska aan ugu talagalnay taariikhda dalka Soomaaliya gumeystayaashu reer Yurub ee ku shiray Berlin sanadii markay ahayd 1884 ayaa waxa isla gaareen inay dalka Soomaaliya kala qaybiyaan 5 qaybood oo kala ah kow gobolka waqooyi oo lagu gacangeliyay Ingiriiska labo gobolka koonfurta iyo qaar kamid ah waqooyi bari waxa lagu gacangeliyay gumeystihii Talyaaniga halka gobolka saddexaad hadda la magac baxay Djibouti lagu gacangeliyay gumeystihii Faransiiska afar Soomaali galbeed markii hore Ingiriiska xukumi jiray oo markii dambe u gacangeliyay tooyadii Xabashada oo ay ilaa hadda talinayaan Itoobiya shan halka gobolka shanaad koonfur galbeed ama NFD ayadana xukumi jiray Ingiriiska oo markii dambe la wareegtay dalka Kenya shantan gobol isku yiraahdo Soomaali weyn ama shanta Soomaali waxa taariikhdu markay ahayd 26 June 1960 waxa dib xorriyad u helay gobolka waqooyiga Soomaaliyeed sanadkii waxaa dib u helay xorriyada koodi Luulyo amba koodi June qof sida u taqaano gobolka koonfureed kadib si walaaltinimo ku jirto isu yimaadeen halkaas ku aas-aasay jamhuuriyadda ummadda Soomaaliyeed ay lahaayeen oo ka madax banaan gumeystihii iyo marka gumeystayaasha gobolka xeebta Soomaaliyeed oo hadda la magac baxay Djibouti waxay xorriyadeeda dib u heshay sanadii markay ahayd 1977 gacan weyn markay ka geysatay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliya ayna horta ka ahayd gumeystaha Djibouti xorriyadeeda waxaa lagu xiray shuruud oo ah in aynay ku biirin jamhuuriyadda Soomaaliya taasoo ay gumeystihii sabab uga dhigeen in Djibouti ay degin dad Soomaali kaliya markii dambe waxaa lagu dhameeyay in ay dowlad madax banaan noqoto laakiin xilligaasi ilaa hadda dowladda Djibouti waxay leeyihiin xiriir walaaltinimo ummadda Soomaaliyeed tooda kale gobolka NFD waxaa lagu dhameeyay sida la sheegay dalka Kenya kamid noqoto arintaasi markii qalin ku duugay dowladda Soomaaliya dowladda Kenya waxa dowladda Soomaaliya ay markaasi jirtay u saxiixay Axmed
Ibrahim Igal oo ahaa markaas wasaaraha dalka Soomaaliya markii ay Soomaalidii koonfurta iyo waqooyiga xornimadii la hayeen wadanku xulxa magacyo loo yaqaanay goboladiisa kuwaasoo u bixiyeen gumaysto qaar ka mid ah Xuseen Maxamuud Xusayre kulanka dhalinyarada Muqdisho.